السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اسكو سو نقد وعنا ونكسن ويو ولالكينا من دي ام سي وركي كوخدا يا ولي كجيرناي kooxda hanatay horyaalka Premier League Liverpool ayaa halis ugu jirtay in laga mamnuuco in ay ku ciyaaraan garoonkooda Anfield kulamada ka hartay xilli ciyaareedkii haddii taageerayaashooda ay joojin waayaan inay dabaaldegyo ku dhigtaan agagaarka garoonka Anfield. kooxda ayaa kula biirtay booliiska Manchester dowladda hoose iyo duqa magaalada Johannesburg cambaareynta qaar ka mid ah taageerayaashooda oo dabaaldegyo waaweyn ku dhigtay agagaarka garoonka Anfield iyagoo iska dhaga tiray baqiyada caafimaadka ee lagu xakameynayo faafinta fayraska corona. saaxiib macaan haddii aadan naga mid ahayn nagula soo biiray boggeena iyo sidoo kale YouTube-keena like iyo subscribe saaro si aad uga mid noqoto dadka had iyo jeer wararka kooxda ugu hela. dhismaha caanka ah Liverpool ayaa dab u qabsaday kadib buleer ay rideen taageerayaasha jamciyadda iyadoo oo taageerayaasha ay u hoggaansami waayeen sharciga kala fogaanshaha halka kumanaan qashin ah ay uga dhex tageen wadooyinka iyo dabaaldegyada hanashada horyaalka kooxdooda oo ay muddo 30 sano ah ay ugu dambeysay. booliiska Manchester ayaa soo saaray amar ah in la isku iman karin habeenka Jimcaha wuxuuna soconayaa ilaa iyo habeen dambe. sargaal u hadlay maamulka magaalada Liverpool oo lagu magacaabo Andy Cook ayaa xaqiijiyay in la xiray 15 qof oo rabshado geystay intii ay taageerayaashu u dabaaldegayeen. maamulka Premier League ayaa ka gaabsaday in ay ka hadlaan dhacdooyinkii ugu dambeeyay laakiin guddiga la talinta ammaanka garoomada ayaa cadaadis lagu saaray in ay Anfield ka dhigaan garoon aan lagu ciyaari karin inta ka hartay xilli ciyaareedkan. madaxa guddigan oo lagu magacaabo Andrew Simon ayaa u sheegay taageerayaasha inay raacaan sharciga kala fogaanshaha si uusan caabuqa corona mar kale u soo laba kacninin. kooxda Liverpool waxa u hartay 3 kulan oo ay ku ciyaarayaan garoonkooda Anfield Axadda 5 bisha July oo ay soo dhaweynayaan Aston Villa kadib balay ugu dambeyntiina Chelsea. waa kulanka Chelsea midka ay maamulka Premier League qorsheynayaan in ay koobka horyaalka Premier League 30 sano kadib ku wareejiyaan kooxda Liverpool oo taamkan ku guuleysatay. haddaba saaxiib ma kula tahay dabaaldegyada iyo isdabakaca ay wadaan taageerayaasha iyo cadaadiska booliisku ayaguna dhankooda ka wada in ay xakamay doonto in lagu dheeliba waayaba garoonka Anfield. saaxiib haddii aad adigu ka mid ahayn taageerayaasha nagula sugan halkan iyo sidoo kale bogga YouTube-kan saaxiib nagula soo biro waxaan ku leenahay oo kale like-ta iyo subscribe saaro si aad saaxiib macaan u hesho wararka saxda ee kooxda Liverpool. wixii wara ama wixii ra'yi ka qabto adigu hoostaada noogu reeb.